السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري سو دوادا waxaan halkan uga hadlaynaa ciyaaraha English Premier League kuwooda ugu soo horeeya caawadkan sida tahay Man City iyo Brighton oo ku dheelaya garoonka Etihad Stadium oo English Premier League ah markaasaad ogtihiin Manchester City waxay ku jirtaa kaalinta labaad oo caawadana xilli xunada baraja ay galeen saacadu markay ahayd 40 daqiiqo ayuu Haaland penalty xiray kadib tan markii ciyaartu way socotay inkastoo haddana Man City aysan ciyaar wanaagsan aysan isku soo bandhigaynin isla ciyaar dheer iyo istijid dheer kadib markay ciyaartu wada hardan dheer kadib second half markii la soo maray oo ciyaartu ay marayso 59 daqiiqo Mitoma ayaa gool macaan oo la soo habiyay kaga dhaxray Manchester City barayo meeshaas oo aad moral jabay oo ku ahayd Man City كوسي درن لحد بعد يا لوه بهمينايا كوحد أرسنال هاد كان بليفربول أو ديمن حتى هادي لغري حتى هادي براجع قش أيه وحبه مفروض مش اسكو جنب رقبوه ويا أرسنال إنك استهدنا من سيتي إني أرسنال لقب تيسك جاي شيء مرة تاسو قول كيبا ودينا روما أو مانشستر سيتي أدو أغمر الجبي اللي قاس قول لا بحيرة إنه أقابت مالسها إما سيتي قول كلا أي بحيرنا إني بمشي أنا بقول كلا أنا وين نقول بمانشستر سيتي كاني كريم بات مالسها حبكو أغمر الجبي يعني قول كيبا ودينا روما سود أغمر الجبي مركي قول كلا بحيرة واحد مالسها إنه أقابت إني لو قلنا ما عندنا هل إيه هالكاس مركا أدي بحال قد يلا يقول كيبا يتكلم Manchester City aad bay u moral jaban meeshaas wixii ka bilowday waxa uu maleysay inay ogaayeen macal coachka macal fanska aad bay u moral jaban waa dameen bay uga dhanba خلاص waana lagu dhameeyay waa gambar caawa Arsenal u hargelay caawada Arsenal waa qosol gariiraya caawada kuwii Arsenal hadii kale meel ka gal waa aad bay u qosol gariirayaan marka ciyaar kale oo dambeeyo oo ciyaaraha saaca sida Manchester United Newcastle ciyaar waa jiraan Newcastle waxaan arkay Tuchel Manchester United ayadana waan arkay Manchester United saacadan ayadana arkay Burnley bas Manchester United 1-2 Newcastle United iyo Leeds 2-2 marka waa saacad dambe marka mana sugi kari waayay marka waa intan iyo markale maca salaama nabadgelyo ilaahay akhyare